subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. golaha wasiirada Jubbaland ayaa xalay kulan degdeg ah waxay ka yeesheen xarigii Muqdisho lagu geystay wasiirka amniga Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay sababta loo xiray wasiirka amniga maamulka Jubbaland. warar kala duwan waxay ka soo baxayaan diyaarado dagaal oo duqeymo xoogan ka fuliyay deegaano hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. wasiirka amniga Puntland ayaa xalay kulan aan caadi ahayn la qaatay saraakiishii ka soo goostay ciidamada Soomaaliland oo iskuna soo dhiibay Puntland. shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu cunaqabateynta ka qaado maamulka Jubbaland. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah toogasho mar kale ka dhacday gobol ka mid ah dalka Mareykanka. markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo axada 1 bisha 9 ee September sanada 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. golaha wasiirada maamulka Jubbaland ayaa kulan degdeg ah xalay waxay ka yeesheen xarigii Muqdisho lagu geystay wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ay ka hadashay sababta loo xiray wasiirkaasi. wararka u dambeeya waxaa soo koobaya wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi. ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maalin ka hor xabsiga u taxaabay wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. xariga wasiirkan ayaa yimid iyadoo dowladda Soomaaliya ay Khamiistii amar ku bixisay in duulimaadyada Kismaayo ay soo maraan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. waxaana magaalada Kismaayo horey uga dhacay doorasho ay dowladdu sheegtay inaysan aqoonsaneyn natiijada ka soo baxday. wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ka mid ah golaha wasiirada ee Jubbaland ee hadda waqtigooda u dhacay lana hadlay warbaahinta caalamiga ah ee BBC-da ayaa sheegay in xariga loo geystay wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland uu yahay mid dowladda Soomaaliya ay sameysay isla markaana uu yahay mid si ula kacay u sameysay. waxa uu wasiirku u jeediyay dowladda Soomaaliya eedeymo dhowr ah waxaana uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka suurtoodo inay ilaali weyso xasaanada mas'uuliyiinta sida ay ula dhaqantay wasiirkan oo kalena ay ula dhaqmi karto mas'uuliyiin kale oo fara badan. waxa uu sidoo kale aad u dhaliilay go'aankii dowladda Soomaaliya ay qaadatay ee ahaa in magaalada Kismaayo duulimaadyadeeda loo wareejiyay garoonka aadan cadde waxaana uu sheegay in cunaqabateyn baahsan ay ku soo rogtay garoonka duulimaadyada ee caalamiga ah ee magaalada Kismaayo. wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xaqiijisay xariga lagula kacay wasiirkii amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Janan waxaana ay sheegeen ilahaasi in lagu xiray saldhig ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana la qabtay wasiirka sida iluhu ay xaqiijiyeen isagoo transit ku marayay garoonka Muqdisho aadan cadde si uu u gaaro garoonka Addis Ababa ee Pole Stadium. sida wararku ay sheegayaan Cabdirashiid Janan waxaa lagu soo oogayaa eedeymo la xiriira xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada waxaana loo heystaa ayaa la yiri falal dhacay sanadkii 2015 kana dhacay degmada Doolow ee gobolka Gado. waxaa la sheegay in halkaasi waqtigaas 4 ruux oo maxaabiis ahaa lagu dhex dilay xabsiga ay ku jireen waxaana la sheegay in horey warqad ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir ay ku burisay dacwadda loo heystay mas'uulkan ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay xariga loo geystay mas'uulkan ka tirsan Jubbaland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal
oo ku hadlaya afka golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa isna xaqiijiyay xarigga wasiirka. waxa uuna sheegay in wasiirka loo haysto dembiyo kala duwan oo uu galay kana galay bulshada ku nool gobolka Gado iyo qeybo badan oo ka mid ah deegaanada ay ka arrimayso Jubbaland. qoraal uu wasiir ku-xigeenku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ay muddo badan baadigoobayeen ciidamada laanta dembi baarista booliska Soomaaliyeed ee CID-da iyo booliska adduunka ee Interpol oo dhowaan dib u bilaabay in ka badan 30 sano kadib howloodii dalka Soomaaliya. waa mahadsantahay maxamed. markana warar kala duwan waxay ka soo baxayaan diyaarado dagaal oo duqeymo xoogan ka fuliya deegaano hoos yimaada degmada Ceel Waaq ee gobolka Gado sida warkan ku faahfaahinayo Cabdi Fataax Muumin. wararkan ka helay qeybo far badan oo kamid ah degmada Ceel Waaq oo ka tirsan gobolka Gado ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi duqeymo ay ka geysteen diyaaradaha laga leeyahay dalka Kenya. deegaanka sida gaarka ah ee loo beegsaday ayaa lagu magacaabaa deegaanka Dhamas oo ka tirsan degmada Ceel Waaq oo ka tirsan gobolka Gado. wararka qaar ay helayso raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradahaasi dagaalka ay duqeymaha ka fuliyeen deegaanka Dhamas ay fuliyeen diyaaradahaasna ay leeyihiin ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Soomaaliyana uu kala dhaxeeyo xorgof colaadeed. mid ka mid ah dadka deegaanka oo ku sugan degmada Ceel Waaq ee gobolka Gado oo la hadlay raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay duqeyntaasi ka dhacday isagoona sheegay in deegaanka ay beegsadeen diyaaradaha laga leeyahay dalka Kenya ay yihiin kuwo markaasi lagu beegsaday dad shacab ah oo ku noolaa deegaankaasi. isagoona ka warbixinaya waxa ka dhacay deegaanka Dhamas oo ka tirsan degmada Ceel Waaq ee gobolka Gado ayaa waxa uu yiri xalay waqti dambe abaara maaragtay afarta habeenimo ilaa maantay waxa ka socdo deegaano isku xiran ilaa afar deegaan oo xuduudka maaragtay ku tirsan duqeymaha ka socdo. duqeymadaasna waxaa geysanaya ciidamada Kenya. meeshaas waxaa ka jira maxaa la yidhahdaan khasaare aad u fara badan. markii aan kaga hadlo tuulada la yidhahdo tuulada Dhamasa oo deegaan aad u baaxad weyn ah oo xuduudkana u jirto waxaa dhamay 3 kilomitir. waxaa dhacday maxaa la yidhahdaan in maaragtay ciidamada Kenyaanka ay duqeymo ka sameeyeen xalana ay duqeeyeen ilaa maanta barqadiina ay duqeeyeen galabtana duqeymaha ay ku socdeen. dadkuna waa maaragtay deegaanka halka deganayna way ka kala qaxeen. deegaanka marka la yidhaahdo deegaanka Dhamas oo kale aala qorshe jirta 60 kilomitir. wada dheer oo isku xirta jirta maxaa la yidhahdaan Ceel Waaq ilaa Balaxawo. marka tuulooyin fara badan maaragtay wadadaas maaragtay ku tirsan tuulooyinkaas intaba maaragtay wadadaas ku yaala duqeymaha ka socdo. duqeymo aan caadi ahayn oo aan loo aabayeelin dadkii halkaa deganaa. waxaana jira maaragtay kuleel fara badanna waa jira, abaarna way jirtaa. dadkuna waa dad maaragtay inta badan iska xoolo dhaqata ah. warooyinkiina way gureen. dadkuna maaragtay duurkay u qaxeen. mafahamtay inta badan ciidamada Kenya ee ku sugan qeybo far badan oo kamid ah gobolka Gado ayaa lagu soo waramayaa in dhibaatooyin xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada ay ka geystaan xadka ay wadaagaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayona waxay ugu baaqeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in uu ka qaado cunaqabataynta uu ku soo rogay. shalay ayay ahayd markii dibadbax xoogan uu ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo looga soo horjeeday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo cunaqabatayntan uu ku soo rogay maamulka Jubbaland. qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa si qiiro leh waxay uga hadlayaan cunaqabatayntan iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbaland. waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo dib ha noo celin. ummadda Soomaaliyeed way soo daashay, dagaal sokeeye waa laga daalay. madaxweyne faragelinta naga daa, cunaqabataynta naga qaad. dadkaagii baa nahay, dhallinyaraan nahay, dib ha noo celinin. madaxweyne waxaan leeyahay faragelinta gaarka aad ku hayso Jubbaland kada ilaahay baan kugu dhaarinay naga daa dhibka. waadna kadeeday dhibka naga daa. ma doonina dib inaan noqono, ma doonina inaan maxaa la dhihi jiray dagaal sokeeye aan ku laabano. madaxweyne dagaal sokeeye aan la rabtaa, dhibaatada nala raadinaysaa. madaxweynahanagii baa tahay, dadkaagii baa nahay, shicibkaagii baa nahay, dhallinyaradaadii baa nahay. fiir waayeelada
fiiri dadka si u faraxsan yihiin madaxweyne amni baan haysanaa kala dambeyn baan haysanaa madaxweyne dhibka naga daa madaxweyne waan ku baryaynaa cunaqabataynta naga qaad bulshadaadii baan nahay madaxweyne dhibaatada naga daa madaxweyne dadkaagii baan nahay hoos noo eeg madaxweyne jubbaland faragelinta gaarka aad ku haysa kaga daa maxay macay madaxweyne jubbaland maxay kaa wadataa iska daa jubbaland dhibaatada aad ku haysa ka daa sidoo kale warar kalean helaynaa saaka waxay ku soo waramayaan in laga cabsi qabo inay mar kale magaalada Kismaayo uu ka dhaco dibadbax looga soo horjeedo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo go'aanadii adadka ay ka qaadatay maamulka Jubbaland. wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa xalay kulan la qaatay saraakiishii ka soo goosatay maamulka Somaliland ee isku soo dhiibay maamulka Puntland. wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdi Samad Maxamed Gallan oo warbaahinta kula hadlayay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag siiba deegaano hoos yimaada degmada Badhan ayaa waxa uu ammaan kala duldhacay saraakiishii horuboodaysay ciidamadii ka soo goostay maamulka Somaliland. sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay kulamadan iyo sidoo kale waa go'aanadan ay qaateen saraakiishaasi isagoo sheegay in wax aad ugu farxay tahay mar haddii ay isku soo dhiibeen maamulka Puntland. waxa uu ballan qaaday inay si nabad ah ugu noolaan doonaan deegaanada Puntland si joogto ah ay u heli doonaan mushaaraadkii ay qaadan jireen. sharaf bay noo tahay waxaanu ku faani karno oo ku faraxnana waa inoo ciidamo ka tirsanaa maamulka Soomaalidiidka deegaankan aanu joognana ka soo jeeday inay iyagu go'aansadeen in ay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan oo dadkooda iyo dalkooda ay difaacaan oo ay ka noqdaan khaladaadkii ay horey u galeen. aad baanu ugu hambalyaynaynaa ugu tahniyadaynaynaa ku faraxsannahay si kal iyo laablena u soo dhowaynaynaa. sidoo kale saraakiil xigeennada iyo dablayda ay hortaagan ee go'aankaa qaatay ina soo hor istaagay iyagoo maantay ah una diyaarsan ciidamada difaaca ku jira ee Puntland ka mid ah isteelooyinkii garbaha u saaraa ee Soomaalidiidkana guray oo dhulka ku daadiyey aad baan ugu mahadcelinayaa. sarkaal baa ii muuqda ku ilaaway garbihiisa isteelada isagana sarkaalkaana waxaan farayaa inuu ka dejiyo. aad baa u mahadsantihiin waxaad naga mudan tihiin inaannu idin qadarinno idin karaamayno idin sharafno saaad noo karaamayseen dadkiinna iyo dalkiinna iyo deegaankiinna u karaamayseen. si kastaba haatee kulankan dhex maray wasiirka amniga maamul goboleedka Puntland Cabdi Samad Gallan iyo sidoo kale saraakiishii ka soo goostay maamulka Somaliland ayaa waxa ku soo aadaya iyada oo ku dhawaad 10 wasiir oo ka tirsan maamulka Puntland hadda ay ku sugan yihiin degmada Badhan iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada. wasiirada ayaa badi waxay ka soo jeedaan gobolada Sool iyo Sanaag. halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. markana akhbaaraadka dibadda ku dhawaad 20 ruux ayaa waxay ku dhinteen toogasho ka dhacday qaybo ka mid ah gudaha dalka Mareykanka. toogashadan ayaa waxay ka dhacday gobolka Texas ee dalka Mareykanka waxaana la sheegay inuu geystay nin ku hubaysnaa qoriga darandooriga u dhaca. saraakiisha waaxda caafimaadka iyo sidoo kale ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxay sheegeen in dhimashadu intaasi ka sii badan karto maadaama ay sheegeen in kooxdii ama qofkii falkan ka dambeeyay ciidamadu ay gacanta ku dhigeen. dalka Mareykanka waxaa caado iyo dhaqan ka ah in la iska wato hubka noocyadiisa kala duwan taasoo caqabad xoogan ku noqon karta toogashooyin mar walba ka dhaca gudaha dalka Mareykanka. Koongareeska dalka Mareykanka ayaa dhowr jeer hore waxa uu damcay in meesha laga saaro qoryahan isla markaana sharciyo adag laga soo saaro balse waxaa jira kuwa weli diidan in qoryahaasi meesha laga saaro. goobaha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa waxaa la soo warinayaa in la geeyey 12 ruux kuwaas oo ku dhaawacmay toogashadii ka dhacday gobolkaasi. guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Simba waa naga intaa. warkayaga cidda uu sheegay markale waxay ka heli karaan beejweynahan internetka ku leenahay ee simbanews.com. waana ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka warkayaga subax ee nabadgelyo. أهلا وسهلا.